arkeeno oo dibadda aynu u iibino oo hadii beddelka khayraadka dalku jira la soo baxno oo ciidii uu diidayay bahalkii maxay ahayd iyo dhagaxii uu diidayay maxamuud xaaji cilmi inaynu dibadda u dhoofino oo lacag adag soo siisano haddii aynu dul fadhino dawaynu bakteena weynu hadii beddelka lacag adag helmayno oo isqabsan doonaa isxaqaaqan doonaa markaas waa in la dhoofiyaa la manaafacadsada ayaynu leenahay taas waa taawey وارمها يعني حلقة محاكورة دقدقة وحيابا وبان وحوي إلا يريو شلينكا سوقا كجرة سوبال لانت إلا يريو وحيابا وبان محاكورة إن وحلوه قبطو ومحالو يراني وين الدولة خرج كده عادي عاد ودنتا محاكم إذا وحيابا لديميو وحاكم إذا dadka shaqaalaha ee farabadan ee la qorayo ee aan loo baahnayn waa waxyaabaha sixir barka si dadba bay u keenayaan inkastoo dad la shaqaalaysiinayo laakiin haddana waxay keenayaan sixir bar 200 ee la taliyay ee dawladda ay qoranayso ayaa kamid ah waa in maxaa waxa la yareeyaa sababtoo ah waxa imanaya sixir bar ta kale sixir barku maaha wax maanta dhashay maaha waa waxay soo tareeyay oo maalinba maalinta ka dambaysa maxaa ku raay soo imanayay oo hadii la beddelka leeyahay soo korayay oo soo weynaanayay oo soo xoogaysanayay marka runtii waxa u baahan tahay in arrimaha si degdeg ah loo qaato waxa weeye waxa jira farsamooyin fara badan oo laga shaqeyn karo lagu dhimi karo oo la isticmaali karo laakiin farsamooyinka qaarna way shaqeynayaan qaarna shaqeyn maayaan haddii la yiraahdo sixir baa loo sameeyaa dollarka haddii la yiraahdo dollarka ay yaryarno inamada sarifa waxaas xal uma noqonayaan xagga dambe ayuu bay ka sii xumaanaysaa oo haddii la bedel farsamooyinkaas qaar shaqeynaya oo long term maaha yaa waxa weeye wuxuu bay keenayaan inay sixir bararkii sii kordhiyaan u bay keenayaan marka waxa leeyahay waxyaabaha kamid ah xalka kamid ah waxa kamid ah horta xukuumaddu sideedaba in ay qaadato shilin Somaliland maaha inay maxaa ku raay halka ku qaato dollar haddana dollarka dadka u diido maaha waxa weeye waa inay maxaa ku raay midalan maxaa kamid ah waxyaabaha in haddaad tagto halkan immigrationka waxa la oranayaa ka fiisada dollarka ee baa lagu oranayaa dekadii baa lagu qaadaya airportka baa lagu oranayaa boqol waxa waa inay xukuumaddu ka tagtaa oo jira anigu eeg ninkii waxay ka keenaysaa ninkii ila lacagta Somaliland tiba haystaa oo kan la fadhidaay dama ay hortay dhigisaata waa soo socdaa waxa weeye waxay dawladdu ku keenaysaa ninkii dollarka la soo degay banku buu la tagayaayo Somaliland uu qaadanaya ayadu bay xarooraysaa halka magarasa ka qaadanayso wuxuu banku baa laga qaadanaya lacag Somaliland baa lagu bedelayaa dollarka ayadu uu tagay ilaa Somaliland ayada ku fadhido bankii dhaxaye marka waxa weeye waxaas waa in la joojiyo waxa yimi arrinkan aad iyo aad la isku hayo in Telesom iyo shirkadaha yaalan waxba shirkadaha maxaa ku raay electronic money horta waxa weeye marka hore de sharci distorkeena waxa ku jira waxa la isticmaalayaa lacag adag baa la isticmaalayaa oo hard currency oo shilin la yiraahdo la isticmaalayaa electronic money gaasi kuma jiro shuruucdeena asaasiga kuma jiro waa wax cusub weey waxa baa horta isticmaalkiisu sharciyad buu baahan yahay ko ama idaabato ama maxaa ku raay saadaato waxa u baahan tahay electronic money anigu mali saad waxaan idhi ma intaad lacagtaadii qaato ayaad maxaa ku rahay electronic soo doontaa oo hadii beddelka leeyahay qof geyso oo ay ka tahay asqa qaadan doontaa runtii marka waxa weeye runtii arrinkaasi shuruuc buu u baahan yahay waxa weeye arrin aad iyo aad controversial oo ah anigu labada shirkadoodba waan jeclahay waxay qabtaan hawlo fara badan bay qabtaan oo adeeg badan bay qabtaan laakiin tan lacagta ay qabanayaan ay dollarka urursanayaan anigu kuma waafaqsani labaha kala doorteen dalkii inay dumiyaan oo ku dumiyaan dollar iyo baahidii inay ku dumiyaan iyo inay shay Soomaali ku shaqeeyaan waa labadaa mid sidaan u lahayn xukuumaddu yaar ay qaadanin dollar yaar ka maxaa ku raay cashuuraha iyo waxa ku urursan sidaan u leeyahay ayaan u leeyahay ayaguna maaha inay dollar ku shaqeeyaan oo dollar ay maxaa ku raay wax ku iibiyaan jaamacadaha lagu qaadanayo waa in Somaliland lagu isticmaalaa ay maxaa ku raay saad iyo maxaa ku raay idaabka waa in Somaliland lagu isticmaalaa hadday rahan dollar baan ku isticmaalaynaa way khaldayin dalkay duminayaan ha kala doorteen dalkan ay lacagta ku ururinayaan inay dumiyaan iyo hadii beddelka leeyahay inay maxaa ku raay horumarkiisa iyo qaataan ha kala doorteen taas
تاسوا تاوي حكومة لفتيدو هي محاكو راي الدولة هنا إني محاكو راي سوق اليان لعق فربضن أو أن لو بعنين وهدي اللي بدك اللي هي أيدي تصوت طبعا إسكا إن سأصور كانوا قليل إسكا صوت بعدان معها تاسنا حكيني سا دل كويت مينيسا وحلنا هاي لعقتها بانكا دحى وإلو دايا لعقتها وأسوق مسؤول كالنقطة وأسوق محاكو راي أنت السوق جلسة هي أنت محاكو راي هي أنت السوق جلسة أنت كلا سوق أمية أو بورد لوصة بيا بانك دحى أو هيئة العقدة لا حكومتها اللي ويديو نقطة ووزير كمالية دوارو كشكين شقة مالي وزير كمالية دو العقدة يوحى وحسكله أو بسياسة وصبية ده واحد أرترتي أكثر ديا محاكو راي دقاليها كي وينا محمد عمر حاشي بقى أكثر ديا أستجا $2